daawadayaal suuqa weyn ee magaalada Hargeysa waxaa qabsaday dabkaasi oo ka kacay haddaba shacbiga ayaa ka guuraya oo ka guranaya alaabtoodii inta ay u badqabaan ee soo sukaysa ee saaran laamida dhammaanba suuqa ayaa intiisa badan gubtay kaasi oo hadda la daadguraynaya oo ciidamada kala duwan ee Somaliland la soo dhoobay goobta si ay u caawiyaan dadka oo ay meesha uga soo saaraan. bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum daawadayaal ugu horreyn waxaan murugada la qaybsanaa dadka dhibaatada ka soo gaadhay suuqa gubtay ee Hargeysa suuqa wahayn ee xalay gubtay ayaa waxaa ku gubatay hanti aad iyo aad u tiro badan taas oo dhammaan wixii hanti taalay halkaas ay ku shuba gashay haddaba waxaa jirta arrimo ka soo dhaxbaxay suuqa gubashadiisa taas oo ay ka mid ahayd dhaqankii Soomaaliland jirtay ee ahaa haddii ka kale dhibaato ku dhacdo inay sacaawiyaan oo isu gurmadaan taas oo baryahan ay siyaasaddu kala qoqobtay lamadii in ay Soomaalida dhaqankaas ka dhaxbaxay oo dhaqankaas gebi ahaan basuulay haddaba dhaqankaas waxa soo noolaysay maanta dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya taasoo la oran karo waxa in caawiyada Soomaaliya ee aan la oran karin waxa in caawisay Itoobiya waayo dad badan ayaa waxa ay lahaayeen waxa in caawisay dowladda Itoobiya taas oo ah arrin khalad gebi ahaanba dabkan ay ka tiraanyatay Soomaali meel ay joogtaba iyo cidii deerka Soomaaliba leh ayaa waxa gurmadkii u horreeyay la soo gaaray caasimadda Hargeysa ama suuqa gubanayay ee waahan dowladda deegaanka Soomaalida taas oo u soo dirtay dadamisyo sida ay warbixintani sheegaysay iyo wafdi ballaaran oo ka socda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa gurmad la soo gaaray caasimadda Somaliland ee Hargeysa oo habeennimadii xalay uu qabsaday dabi hoggaanka nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa telefishinka Home Cable ugu warbixiyay gurmadka ay u sideen dadka reer Somaliland waxa hantidoodii kaga baabaday suuqa waaheen inta uu kale waxa jira ummadeena Soomaaliyeed oo ah dad ku maqla qowda oo marka ay maqlaan wax fahma ayaa waxa jirtay in hore suuqan waahan looga digay dhibaatadiisa taas oo ahayd in hore ay u sheegteen warbaahinta qaar sida TV-ga Home Cable in aanu lahayn suuqani wada laga soo galo hadii bilaabada damiska dhawacdo Soomaalida oo ah dad aan maqlin dadkeeda in dheer garadka ayaa hore waxa looga digay in suuqana ay dhibaato ka dhici karto taas oo loo fasirtay in ay hagardaamo iyo sumcad xumo ay ku tahay dowladda oo kabacdina loo geystay wariyaashii duubay warbixintaasi jirdil iyo hagardaamo iyo in la xidhayo xarig la isugu daray muddo kooban haddaba arrintaas oo hore looga soo digay bal aynu wada daawana muuqaalkaasi xilliga la duubay wariye sagal beeldeeq axmed iyo sawirqaade ridwaan xuseen yuusuf waxay saaka u kaleheen siday warbixin uga soo samayn lahaayeen suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa kaas oo ah mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee magaalada Hargeysa laakiin aan lahayn wada gaadiidka dabdamisku ay suuqaasi ka galaan haddii uu dab ka kaco ama dhib kale ay ka dhalato ujeedada warbixintan ayaa ahayd baraarujin sidii suuqaasi loogu heli lahaa wadooyin gaadiidku ka galo haddii uu dab ka kaco laakiin askari ka tirsan ciidamada bilayska Somaliland ayaa qalabkoodii kala wareegay isla markaasna jirdil u geystay waxaana muddo kooban lagu hayay saldhigga booliska ee New Hargeysa